السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن ميل كستو الدنيا كتشوكتان aad baan idin salaamayaa waa shantii iyo barkii subaxnimo dhowr daqiiqo dhaafay bacda salaad subax waqtiga Hargeysa meel kastoo dunida ka joogtaan saaxiibayaal waan idin salaamayaa aad baan idin salaamayaa subax wanaagsan kuna wanaagsan ilaahay baa mahadle jalla wa ala nabad qab inagu soo toosiyay ilaahayna inta culays ku haystaa ka dulqaado inta dhibaataysan dhibaatada ka dulqaado inta warwarsan warwarka ka dulqaado inta barwaaqaysan barwaaqada hawsiyaadii saaxiibaadii aad baan idin salaamayaa saaka saddex qodob ayaan doonayaa saakeenan halka barnaamijkeena kaga hadlo subax wanaagsan waxaan aad iyo aad u dul istaagayaa saddex qodob oo mas'uuliyad leh oo dhowrkii maalmood ugu dambeeyay maaragtay la hadalhayay gudaha waana barnaamijyo la xiriira arrimaha bulshada oo kuwa aynu ka wada hadli jirnay waxaana ugu waaweyn oo ugu muhiimsan oo maaragtay dadka bulshada caafimaadkooda saddexda qodob aan ka hadlayo qodobka koowaad waxa weeyaan toddobaadkan imika dhamaaday maanta sabtiyo bilaabmaya kii cusba waxaa la qabtay dawooyin dhacay oo ciidamada booliisku ay qabteen dawooyinkaasi oo kartoomada lagu soo riday iyo kartoomada lagu moorgareynayay iyo dhibaatada arrinta ka imanaysa aad iyo aad fara badnay horena aan idinku sheegay in dawooyinka dhacay iyo dhibaatada ay leeyihiin aad iyo aad loo soo geliyo wadanka meelo badanna laga keeno dawooyinkaasi dhacayna culays badan ay ku hayaan bulshada kartoonkii oo maran ayaa la soo iibsanayaa marka kartoonkii oo maran la soo qaato ayaa qofku wuxuu samaynayaa ugu muhiimsan inuu kiniinadii uu ku dhex guro kartoonkana uu ku soo samaysto magaca dusha sare waxyaabo badan oo dawooyinka noocyadoodii kala duwanaa ama kii gaastariga ama kii macaanka ama kii dhiikarka ama kii garaaca alaabtaas oo dhan ayuu intuu soo waarido oo baabuur soo saaro ayuu wuxuu samaynayaa waddanka soo gelinayaa markaasuu doonayaan inay dadka iyo bulshada ay dib uga iibiyaan nambaro cusub ay kusoo qoranayaan madbacado gaar ay kasoo daabacanayaan yani meel walbana arrintaasi saameyn xoogay ku leeday dadkiina dawadiis kama akhriyayaan culays ma saarayaan arrintaasi waxay saameyn badan ku yeelatay bulsho badan caafimaadkoodii sida kartoomo hore oo dawooyin oo aan idiin soo gudbinay oo dad badan ay cunayeen dawooyin macaanka loo cunayay ama dawooyin dhiikarka loo cunayay oo qofkiina aan waxba u tarayn qofkiina uu qaadanayo arrintaasi saameyn badan ay ku yeelatay bulshada taasina ay keentay in dad badan markii barnaamijyada aan ka hadalnay ay iska bedeleen dawadii ay cunayeen oo ay u arkeen inay dawadaasi ay tahay takhaladka ee magaalada Hargeysa ama guud ahaan Soomaaliland lagu iibinayo Hargeysa iyo Soomaaliland inta badan waliba waa meelaha quality control leh dawooyinkana la ilaaliyo haddana wax badan ay hoos maraan dhulka kale Soomaalidana iska daabo marka Soomaalida oo dhan intooda badan waxa lagu iibiyaa meelo badan ama la geliyaa dawooyin dhacay oo dhibaato bulshada ku haya ama dawooyin maaragtay dhibkeeda leh oo dadkii aan loo naxayn dadka soo iibinaya soo gelinaya yihiin dad macaash doon degdeg ujeedada ay ka leeyihiin macaash doon degdeg ay tahay dadka aanay eegaynin dawada tayadooda ay soo dilayaan meesha ka soo qaadanayaan aanay saxayn dawada dhacday inta la urursado haddana dib loo moorgareynayo dawada waqtigeeda laga bedelayo booliisku maalintii dhaweyd way qabteen way soo bandhigeen arrintaasi saameyn badan bay nagu leedahay waxaanan u baahannahay inuu qofku aanu kartoonka lagaga iibinayo dawada ee quruxda badan aanu eegin laakiin ay qofku eega dawadani halkay ka timid dawooyinka inta badan dhacay ama dawooyinka aan wanaagsanayn waxaa lagu soo qoraa wadamada reer Yurub ee ay jecel yihiin dadka Soomaalida meel kastoo ay joogaan arrintaasina saameyn bay leedahay markuu farmasigu ku dhaay dawo Ingiriis ayaan ka iibinaya oo ku dhaay dawo Jarmal ka iibinaya oo ku dhaado dawadan oo maaragtay wadan Yurub ka iibinaya arrintaasi saameyn xooga ayay leedahay marka inaad iska ilaalisaan arrintaasina maskaxda aad ku haysaan culayska ay leedahay arrinta qodobkaasan kaga baxaya barnaamijkan insha Allah ka sameyn doonaa arrinta labaad waxa weeyaan
مسؤولية صارن dadka dhakhaatiirta caafimaadka iyo goobaha caafimaadka ee bulshadu tagayaan in yar raali ahaada dadka saaran mas-uuliyadda caafimaadka ee la xidhiidha sida ay qofka xanuunsanaya ee maaragtay dhibaataysan loo ilaaliyo iyo mas-uuliyadda ka saaran qofka dhakhtarka ah ama qofka neerasta ee uu qofka xanuunsanaya uu yimaado marka ugu horreysay uu soo wajaho iyo sida loo ilaalinayo marka iyo dhakhtarka iyo maaragtay mas-uuliyaddiisa marka haddii ilaahay nafta inoo daayo barnaamijkaasi waxaan kaga hadli doonaa maalinta isniinta haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ka qaban doonaa barnaamij weyn oo la xidhiidha mas-uuliyadda saaran dhakhaatiirta caafimaadka dhakhaatiir waxaan soo casumi doonaa iyo garyaqaano haddii ilaahay yidhaahdo maalinta isniinta oo si weyn uga hadli doona qodobkaasi labaad iyo qodobkaasi koobaad oo noqonaya mas-uuliyadda ka saaran dhakhtarka bukaanka u imaata maxay tahay taasaan iyadana aan ka qaban doonaa dad baan ku casumi doonaa aqoon leh waxaan ku casumi doonaa dad mas-uuliyiina oo shaqada maaragtay mas-uuliyad ay ka saaran tahay oo bartay maamulka iyo maareynta iyo hogaaminta caafimaadka oo gaar ka ah ee dhakhtarnimada laakiin mas-uuliyadda leadershipka caafimaadka iyo safetyga qofka xanuunsanaya ee dhibaatadiisu ay maaragtay gaadhayso inuu qofku geeriyoodo dhibaatooyinkaasi ay la soo darsaan marka waxaan u baahannahay mas-uuliyaddaasina bal inaad ogaataan saameynta ay leedahay dhakhaatiirta sidee loo dabagalaa dhakhaatiirta sidee loo ilaaliyaa caafimaadka sidee maaragtay looga taxadiraa arrintaasi waxaan keeni doonaa dad xirfad leh oo aqoon leh oo caafimaadka bartay oo mas-uuliyad xooga iska saaraya arrintaasi arrinta saddexaad ee maaragtay aan ka hadlaynaa waxa weeyaan muhiimka iyaduna haddii allah awoodda la yidhaahdo oo maaragtay barnaamijkeena iyaduna qayb ka noqon doontaa sharciyada caafimaadka miyay diyaarsan yihiin haddaanay diyaarsanayn sidee loo diyaarinayaa xeerka caafimaadku muxuu sheegayaa haddii qofka xanuunsanaya ee goob caafimaad yimid lagu tacadiyo oo ay ku tacadiyaan adeegayaasha caafimaadku dhakhaatiirta ama kalkaaliyayaashu maxaa mas-uuliyad ee ka dhalanaya arrintaasi hadday mas-uuliyadda ka dhalanaysa ma in qofkii dayac u dhintaabaa ma in qofkii dayac loo dhibaateeyaabaa mise maaha arrintaasi haddii ay sameeyaan arrintaa muxuu xeerka qabanaya muxuu noqonaya taasi ayaa iyaduna qayb ka noqon doonta insha allah waxaan idiin soo casumi doonaa iyaguna sharci yaqaano xeerkaasi caafimaadka ka hadlaya marka barnaamijkaasi 3 qof oo muhiiman kusoo casumi doonaa maalinta isniintaan qaban doonaa insha allah meeshaan ku qabananaya xaruntana idiin soo sheegi doonaa aad iyo aad baad umahadsantihiin waan idiin mahadnaqayaa dhammaanba barnaamijkeena subax wanaagsan waa maalin sabtiya bishuna ay tahay 12 aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa waqtiga geeska afrika saacadiisa ama bariga afrikaba waa 5:42 daqiiqo salaadii subax goornooyinta laga soo baxay ilaa iyo 25 daqiiqo laga joogaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدي أدود ما سنتين صباح وناكسن. السلام عليكم.